waxaan joognaa jasiirad ku taalla koonfurta Fiidnaam oo magaceeda la yiraahdo Fadlan. waxaa mucjiso ah waddanka Fiidnaam iyo sida Somalia iyo Fiidnaam ay waxyaabaha badan isaga shabahaan. calankoodu wuxuu leeyahay waana hal kalar inkastoo koodu yahay xuduudkeeduna uu yahay blue. waxaa kaloo isaga mid yihiin sida arkaysaan xeeb aad iyo aad u weyn oo bad aad u dheer ayay leeyihiin. waxay leeyihiin jasiirado waxaa kaloo mucjiso ah oo isaga mid yihiin waxaa ka mid ah sida waddankan Fiidnaam gumaystuhu uu kala qaybiyey. waxaa loo kala qaybiyey waqooyi iyo koonfur. waxaa loo kala sameeyey waqooyiga oo ahaa Ruushka iyo Chinaha oo komunista ahaa iyo koonfurta oo Faransa iyo Mareykanku ay ayaguna maamulayeen. Mareykanku inta yimid oo keenay 5,000 oo ciidan ah ayaa waxay bilaabeen Fiidnaam iskiga Somalia oo ay la dagaalamaan Mareykanka ayagoo waqooyiga iyo ayagoo kooban. dagaalkii deeqo walba yaqaano taariikhda oo Fiidnaam iyo Mareykanka dhexmara ayaa dhacay oo waddan ay ku hartami jireen wadamada la dhihi jiray Warso iyo NATO ama sida loo yaqaano komunistiga iyo dimuqraadiyadda sidii Mareykanka iyo Ruushka waagii Soviet Union. hadda waxaan joognaa xabsiga ugu weyn oo halkaan ciidamada Fiidnaam ay Mareykanku iyo Faransiisku keeni jireen. waraan 14,000 oo maaragtay maxaabiis ah ayaa halkaan lagu hayn jiray. waxaa ku dhimatay xabsigan keligiis 4,000 oo maxaabiis ah. waxyaabaha ku dhinteena waxaa ka mid ah halkaan oo kale waxaa weeye qofka xanuunka halkaan la gelinayaa kuleyl biyo cusbalaha lagu shubayaa ka bacdina asaa qofku iska dhibanaysa. All the way torture to kill the people slowly. Because on the way to die, they will ask some question about the army living. They would like to know more last time of the war, more torture, more people die because they would like unreal to get information to get a bomb attack to finish the war. Even if they use Agent Orange to get all the live in the forest dropping right, and they're looking for the people are inside and who breathed that air before. They get sick for 4 generations until now. Now the answer got one up is take care for the people who get sick from Agent Orange. loo isticmaalayo marka laga baxayo laga fakarayo xabsiga waa kuwaan hadda sidaan ayay u qodeen. markay qodeen halkaasay ka soo baxeen. waa luuq ama god ay uga fakadeen maxaabiistii ciidamadii Mareykanka. waxayna ahaayeen ugu yaraan 500 oo ciidan oo xabsiga ku jiray yaa fakadeen. waxayna mareen tuugadaan arkaysaa. meeshaan meeshii difayska ahayd oo ay geli jireen ciidamada Fiidnaam markay Mareykanka iska xireen. waxaan eegaynaa bal sida godkii intuu leeyahay. halkaan waa wadadii dhammeeda loo geliyay waa difayska ay yaqaanaan. bacdina salaameedna haddii aan
Some leftover, man. No, no. Some leftover stuff of the shooting entrance. This? Leaves. Leaf here. Leaves. Okay. Okay, cover. Okay, hands up. Go down slowly. Okay, say goodbye. Say goodbye. Hands up, butt. Yes. It's got a small hole in it. marka la yiraahdo taariikhda iyo dagaalkii iyo dhibaatadii soo maray intii ka daba socon lahayd waxay ka sameeyeen taariikh museum si ummadda dibadda joogta ay u yimaadaan oo u daawadaan marka waxyaabaha aan ka baran karna runtii waxaa ka mid ah in wax kasta oo ku qosaysa laga gudbi karo markaad aragto dagaalku dhibaatada u geystay iyo positionka hadda ay joogaan waa wax runtii aad iyo